mahadsanid kusoo dhawaada wararkaanu idinka hayno bariga Afrika oo si toos ah idinka imanaya studio Kalsan TV ku leeyahay magaalada Nairobi. Warkan waxa idin la socotiinaysa anigoo ah Iglan Saalax. Wararkaanu idinka hayno bariga Afrika waxa kamid ah wasiirka amniga ee dalkani Kenya ayaa ugu baaqay madaxda gobolka xeebta ee Mombasa inay muujiyaan geesinimo si looga hortago ammaan darrada ka jirta qaar kamid ah gobolada dalka. Faafaynta warkaasina waxay noo haysaa wariyaheena Farduus Ahmed Bedel. wasiirka amniga dalka Joseph Nkiseri ayaa ugu baaqay madaxda gobolka xeebta in ay muujiyaan midnimo si wax looga qabto amni darrada ka taagan deegaano badan oo ku yaala gobolkaasi isagoo inta raaciyay in madaxda aysan dhag u dhigin cabsi laga qabo kooxda MRC oo doonaya gooni istaaga dalka intiisa kale. wasiirka ayaa si weyn waxa uu ugu booriyay madaxda gobolka xeebta in ay muujiyaan geesinimo iyo kalsooni xilliga lagu guda jiro wax ka qabadka falalka amni darro ee ragaadeeyay horumarka countiyo badan oo hoos yimaada gobolka xeebta. Mr. Nkiseri ayaa sheegay in kooxda MRC ay ka mid yihiin caqabadaha dhanka amni darro ee hortaagan horumarka dalxiiska gobolka xeebta. wasiirka oo ka hadlayay magaalada Kilifi oo ay isugu yimaadeen madax ka socota laamaha ammaanka dalka ayaa sheegay gobolka xeebta in uu hodan ku yahay kheyraadka iyo macdan balse caqabad ka jirta dhanka amni darro aysan shacabka ku nool halkaasi uga faa'iideysan karin. madaxweynaha dalka Kenya iyo madaxweynaha dalka Tanzania ayaa ka heshiiyay khilaaf dhawaanaha soo kala dhexgalay gaadiidka qaada dalxiisayaasha ee labada dal. faafaynta warkaasina waxay noo hayay wariyaheena Cabdixakiin Saciid. madaxweynaha dalkani Kenya Mr. Uhuru Kenyatta iyo dhigiisa Tanzania Jakaya Kikwete ayaa heshiis ka gaadhay arrimaha gaadiidka cirka iyo dhulka ee labada dal kuwaas oo muddooyinkii dambe uu ka taagnaa khilaaf. war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkani Kenya ayaa lagu sheegay in khilaafkii dhinaca gaadiidka iyo dalxiisayaasha ee labada dal meesha laga saaray isla markaana la soo celiyay xiriirkii saaxiibtinimo ee dalalka Kenya iyo Tanzania. dalka Kenya iyo Tanzania ayaa muddooyinkii dambe ku muransanaa dhinacyada duulimaadyada cirka iyo arrimaha dalxiisayaasha ee isaga kala goosha labada dal. kulan dhex maray madaxweynaha dalka Kenya Mr. Uhuru Kenyatta iyo dhigiisa Tanzania Jakaya Kikwete ayaa lagu xaliyay khilaafkii labada dhinac. kulanka labada madaxweyne waxa goobjoog ka ahaa wasiirada arrimaha dibadda, wasiirada gaadiidka cirka iyo dhulka iyo sidoo kale wasiirada dalxiiska ee labada dal. basaska waaweyn ee laga leeyahay dalka Tanzania ayaa laga diiwaan gelin doonaa garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta si ay halkaasi uga sii wataan hawlahoodii dhinacyada dalxiiska. sidoo kale waxa hawlaheedii shaqooyina ka bilaabi doonta dalka Tanzania diyaaradda Kenya Airways oo muddooyinkii dambe aan ka hawlgelin dalkaasi Tanzania. madaxda ayaa sidoo kale ku heshiiyay in la isugu yimaado kulan 4 toddobaad kaasi oo looga xaajoonayo arrimaha dhiman ee dhex yaala labada dal isla markaana aan wali laga gaadhin wax. madaxa ammaanka ee magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ayaa qaar ka mid ah dadka gobolkaasi ka soo horjeesteen in shaqada laga eriyo kadib markii toddobaadkii la soo dhaafay ay mudaharaad ka dhaceen la doonayo in shaqada lagaga eriyo. faafaynta qodobkaasina waxay noo haysaa wariyaheena Farduus Ahmed Bedel. qabaa'ilada wada dega magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari dalkani Kenya ayaa ku kala qaybsamay xafiiska saaridda madaxa amniga Alex Ole Inkoyo kadib markii ay countigaas ka dhaceen weeraro culus oo isdaba joog ah. waxgarad iyo oday dhaqameed sheegay in ay ka soo jeedaan 5 beelood oo ka mid ah kuwa ku dhaqan countiga in aysan wax taageero ah la garab istaagayn banaanbaxyada ka dhanka ah Ole Inkoyo oo la doonayo in xafiiska loo waa tahay daawadayaal intaasi waxaa nagaga dhan wararkii aan idinka haynay bariga Afrika oo idin la socotiinaya anigoo ah Iglan Saalax. haatana u diyaar garooba xubinta ciyaaraha warka Kalsan TV oo idin la socodsiin doono wariyaheena Mawlid Warsame Kulane.